santarka Damco ee degmada Booq ee gobolka Dolo. wafdi ballaaran hogaaminaya garaad Mukhtaar garaad Cali Buraale uu weheliyo garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo gobolka Dolo garaad Jaamac garaad Cali iyo uqaal wax garad qurba joog culimo bulshada ku nool santarka Damco ayaa u kala hadhay wafdiga hogaaminaya garaadku iyagoona kaga hortageen meel ka baxsan magaalada oo la soo galbiyay gudaha magaalada Damco. ugu horeyntii waxaa halka ka hadlay odayaasha wax garadka magaalada Damco iyagoo la soo dhaweeyay wafdiga hogaaminaya garaadku. mana arag colaad dhulbaxan oo 5 sano socota horta idinku saayid baadayay ogaada dhulbaxanta way isku dhici jiray boqolaal buu kala dili jiray markuu soo yimaado heshiis waa nagu soo ceelisay waa anu markaan iska waramo dhaxjirka la inagu dhex jiray tawada qaniino haddana laga ma dhaxbixin wada socodka labada beelood maalin iiga farxad badan ma aanan arag sida aad ogtihiin ba hadii laba reer walaalada ay colaada dhex gasho qofka la degan ee guriga la leeyahay dariska ehelka la wadaaga uu la qaba sidii colaada labada beelood u dhacday dadka rasixin ma lulan marka sida darteed hadii labadii leeyd waxa ka timid oo labadii garaad marayaan iyo wafdi hogaaminaysa nimco nooga badan iyo najax nooga roon iyo farxad nooga badan ma aanan arag ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noogu waato sida la khayr fi kathir min ajwahum إلا من أمر بالصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس. مركا كلمة واحد كتوسع واحد خير كثيرين لسوي ما كرو. مركا سي أرنت أنه خير النقطة منكرات كثيرة مغلا وإن سولنا. نقول حنون هاي قلت لي جابنيين اسمه أرنت أنه سعنا لما كان سوق وأنه صلح وضب بسور ورنايا. مركا ورئيسا لبضع اسم والسعودي قد يركع عيي waxay hormuud u yihiin baa khayr iyagoo isma dhulbaanta oo isma daarooda oo isma Soomaaliyeed marka hoos ahaan loo raaco waxay maanta u socdaan aslaaxa iyo nabadgelyada baa khayr nin waliba ninkiisa meel jooga nin waliba ninkiisa u danqanaya nin waliba ninkiisa masiibada ku dhacday yooga danqanaya taa waxaan kaga tagayaa dadweyne weynaad ogaataan xigtadiina weynaad ogaataan markii masiibada ku habsatay oo la isku kiin dilay waxa idin gurmaday wixii aad ka dhalateen wax la wadaagteen waa xaqiiq waana ku guulaysateen inaanu sida kanoo kale u dhaxmaro nabadii xidhan tahay oo dadka la isu keeno oo loo wacyigeliyo sida aanu wada soconaa sidaa weeye socodka iyagu arrimaha uu ka koobnaa waxay ahayd garaadka cusub garaad Mukhtaar garaad Cali Buraale in dadkiisa la baro oo ay sarkaan iyana ay bartaan isna uu barto oo deegaamada meel ay joogaan oo ay sarkaan uuna u duceeyo dadkii gabagabadii waxaa dalka soo afmeeray garaad Mukhtaar garaad Cali Buraale iyo garaad Jaamac garaad Cali iyagoo la mahadcelisay ay soo dhaweeyeen bulshada magaalada Damco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعمو ما شاء الله الله يباركيه. ساكت وحن صورك نوم مغذي أمام رجلو سودوين توعان قروح ذبضان وتشدي لكم مغذا سدا نو سودوين سين إلا يأتي على ذيك سودوين سدا شرفت له أبو أيضا نوكل هارين ريال وحجارد وقال علمو هوين قبضو دليرو عرور عامو عد كستاب الله آدي آد بانيدو كما هذينينا إلى أين جزاكم الله خير ميزانك حسناتك الله دي صاروا وما هذينينا روانتي رير دمعو مانتا معجزوين باندة تستين دولة نمانا تستين دنمانا تستين تولمانا تستين آديات بانو مهدينينا الله يدين بركي الله يدين بركي الله يدين بركي إن شاء الله تعالى تنوغو ويليد وحي هيد قرات كانوا قلبينين قرب وقوة حينو بها خير ديغان كيدا إن شاء الله تعالى ديغان ندا كلايو دول بحان تبا إنا أنو لمرو إنا أنو قرب وقول نقولنو إنو دادكيسا إيا دالكيسا أو برتو dalka iyo dadka baha khayr iyo dhul bahantana ay bartaan nabadgelyadii way inoo xiran tahay
ilaahay waa inoo barwaaqu inagu siiyey oo nabadgelyo ina siiyey oo xumaantii iyo cadaab bay ahayd cadaabkii wuu inaga dulqaaday waxaad se moodaa geela qaar baa biyaha diidoo duq la hor qaadaaye halkaa caaqil ilaahay shaqale uu sheegay duqaha loo hor qaadaa la yidhiyo dadka in aanu hor qaadno oo deegaamada dhex marno oo kii dib isu dhigayay aanu tusno lagama maarmaan bay noqotay alxamdulilah rabbilcaalamiin wanaaggaa iyo khayrkaasaanuna ka helay waa khadar tarabi wararka Soomaali News magaalada Damco